kamida beelaha deg gobolka Hiiraan ayaa waxay kulankooda ay kula fugureen xaaladda guud ee Hirshabelle iyagoo si gaar ah diiradda u saaray qaabka loo marayo dhismaha golaha deegaanka degmada Buluburde ee gobolka Hiiraan inay tahay mid sharci darro beesha baadacadana ay ka soo horjeedo kulanka waxaa ka qayb galay Wabar Maxamed Wabar Axmed Wabar Cabdi oo ah warka beesha baadacade wasiiro xildhibaano ka tirsan Hirshabelle waxgarad odayaal dhaqameedyo culimaawidiin dhalinyaro aqoon-yahano iyo haween Naciime Cusmaan oo ku hadlaysay magaca gabdhaha beesha baadacade iyo xildhibaan Aadan Odowa Cumar oo ka tirsan xildhibaanada Hirshabelle ayaa labadooda waxay sheegeen marnaba aysan aqbali doonin qaabka loo marayo dhismaha golaha deegaanka degmada Buluburde ee gobolka Hiiraan waxayna ugu baaqeen madaxda Hirshabelle in arintaasi ay ka fiirsadaan annaga shalay hadaan jiifnay maanta waan soo jeednaa wax kasto oo aanoo qalminay waxaan diyaar u nahay inaan iska diidno golaha deegaanka saacadan kuma haboon in la dhiso in Hiiraan la saaro culays ama maxay aheeday waxaysan raali ka ahayn lagu qasbo waan ka soo horjeednaa hadaan anaga beesha baadacado sidayna la qabaan dadka reer Hiiraan wayna la qabaan sida beledweyne Buluburde Jalalaqsi Jowhar Mahadaay shanta degmo way diidan yihiin golaha deegaanka sida wada ognahay annagana nalaguma caburi karo waliba annaga oo waliba laba mar aan lagu xadgudbay labada mar waa doogtay madaxweynihii hore la bedelanay saasoo kaleento in uu gobolka maxay ahayd degmada Buluburde oo ka qaaday gudoomiyihii haddana midkaan oo ka qaaday annaga waxaan u dooranay arrimahaas xildhibaano nagu matalo meeshaas beesha matalo deegaanka matalo shalay wuxuu ku imaaday gudoomiyahaas codka xildhibaanada 6 xildhibaan iyo saxiixooda iskama tagin asaga maantana in ayaga lagala tashtay dawladaha hoose ama deegaanka marka la dhisaayo waxa loo baahan yahay dhammaan deegaanka inuu marka ugu horeyso horta uu nabad yahay midda labaad in nabadgelyada la xasiliyo in dib u heshiisiin laga sameeyo guud ahaan gobolka dib u heshiisiin gogol dib u heshiisiin wali laga ma dhigin dib u xoreyn laga ma sameeyo wadanka cadow haysto Buluburde iyo beledweyne iyo Jalalaqsi iyo kulli meel la isu gudbi karo mal wada ogtii magaalo u gudbi karta male tuulo u gudbi kartana male markaas waxa la fiirsaday wax la yiraahdo interest waa dulmi annagana dadkii shacabka annaga ku metelna deegaankii waan ka diidnay taas waa bii kama dhibcaan way qodobka labaad oo aan rabo inaan ka hadlo madaxda Hirshabelle saakin waxaan Facebook social media aan ka arkaynay warqad la soo dhigay mar kale waa dulan kala hadane uu soo dhigay wasiirka arrimaha gudaha ee dawlad goboleedka Hirshabelle Caadle oo guddi oo la dhisay leeyahay la magacaabay la dhisay guddiga madax banaan oo ka kooban 9 xubnood oo aan qaar aan isnaqaan ay ku jiraan wasiir ma magacaabi karo xildhibaanna ku jiro hal xildhibaan oo aan saaxiibanahay misana wasiir ah ayaa ku jiro guddiga madax banaan haddana beesha guud ahaan waxba kuma leh ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay Wabar Maxamed Wabar Axmed Wabar Cabdi oo ah warka beesha baadacade waxa uu sharxay dhibka laga soo maray dhismaha Hirshabelle isagoona ka hadlay in cadaalad darro baahsan ay tirsanayso xilligaani beesha baadacade Hirshabelle bilowgiisii ayadoo lagu kala qaybsan yahay dadkii u dhabar adeegay ee laf dhabartu u ahaa waa annaga sidii ay ku dhismi lahayd Hirshabelle dadkii u dul qaatay ee dhismaheedii iyo wanaageedii ka talinayna waxaan ahayn annaga cid kasta oo caroota ama cid kasta oo buuqda ee wax tabanaysana dadkii ka daba tagay sidii Hirshabelle u dhismileed ka shaqeynayno annaga Hirshabelle maanta ma ogolaan karna in burburkeeda laga shaqeeyo ama dad dana qaas leh sida wasiir Caadle oo kale inay maanta burburka Hirshabelle ay ka shaqeeyaan annagana aan ugu dul qaadano wax suurtagalay ma ah guud ahaan Hirshabelle beeshaani inta ay ka degan tahay ma ogolo waqti xaadirka la joogo in la dhiso golo deegaan sababtoo ah waxaan tirsanaynaa cadaalad darro badan warbal fiir degmadan oo adiga aad degan tahay yaa gudoomiye degma ka tahay inta kale yaa ku xigeenna ka Jalalaqsi tag hal gudoomiye ku xigeenna taagan gobolka tag hal gudoomiye ku xigeenna taagan marka ilaa baashaasi ay ka timaado cadaalad sax ay ka timaado wax Hirshabelle oo golo deegaan laga dhisayo
annaga aan waafaqsannahay haba yaraatee ma jirto. Cabdiraxmaan waa beri Som News Muqdisho.